دار الشفاء حسبيتال waxaa dib u habayn iyo dardargelin leedinku sameeyay xusbitaalka Daaru Shifa ee magaalada Hargeysa waxaana dib shaqadii uga bilowday Dr. Shamis Cabdilaahi Cabdi oo muddo dalka ka maqnayd xanuunada iyo ciladaha lagaga daaweyn doono xaruntani waxa kamid ah macaanka dhiigkarka xiiqda babaasiirta xasaasiyada suurinta xididada iyo fiixda oo ay Dr. Shamis kaaga daaweynayso dhir iyo gacanteedaba geedka siwa geedka isha laga cabo yaani qofka ilo ku dhicin kaasi waxa weeyaan geedka faaliga kanina waa la mid waa labiyo dhadig qofku marka uu yeesho cadaanka waxa kale oo xarunta Daaru Shifa lagaga daaweyn doona caado wareerka iyo musubiyaanada dhasha u diida dumarka iyo ragga Allah haye kaasina waxa weeyaan ka musubaaniyada qofka kuma dhacayso ilaahay nagu baride kaasi waxa weeyaan geedka jinka dumarka iyo ragaba caruurta ka kaxeeya kanina waa la mid oo isaguna waa xaga dhasha caado wareerka kana waa la mid ishay ka dawo yihiin jinkay ka dawo yihiin xididada macdantay ka dawo yihiin dhasha xitaa caado wareerka waa loo cabaa qof markii caadadu ka wareerto ragga raba inay iska joojiyaan isticmaalka balwadaha jaadka iyo sigaarka balse go'aan ka gaari la Dr. Shamis iyo Daaru Shifa ayaa daaweynteeda haya geedka si waa geedka jaadka laga cabo kaasi waa ka sigaarka laga cabo sigaarka iyo kaadida markay ragga ku dhigto halka qanjirkii laga qalayay weeyaan in badan baan ku xidhnayn waxaan ka imi Moholin 17 sano ka hor ayaan ku xidhnaa arurtayga dhiman jirtay iyadoo shan aruur iga dhimatay baan imi imikana ilaahay shimbir buu naga siiyay buu nagu daweeyay dawadaasaan cunnay 7 aruur ay nool ما شاء الله xarunta caafimaadka ee Daaru Shifa Hospital waxay ku taalaa waqooyiga dugsiga Axmed Dhagax ee xaafadda Ganad ee magaalada Hargeysa wixii faahfaahinay intaasi dheer fadlan kala xiriir raqamada shaashada kaaga muuqda ha moogaanina xarunta caafimaadka ee Daaru Shifa